ninkan sawirkiisa ku muuqda wuxuu tuug u noqday bangina u dhacay inuu ka fogaado xaaskiisa si xabsi loo geliyo loona xiro wuxuuna xaaskiisa ka doorbiday inuu xabsi galo intii uu la noolaan lahaa iyada waxaase la yaab badan in ninkan bangiga uu ka dhacay lacag kadibna sugay booliiska inta ay ka imaanayaan si ay u xiraan haddaba maxaa ninkan da'da ah ku qasbay in xaaskiisa uu ka doorto xabsi sidee ayuuse wax u dhacay loona xiray haddaba wax ka ogow sheekada la yaabka leh ee ninkan iyo fikraddiisa cajiibka ah bal ila soco aan kuu bilowba sheekadan iga yaabisay ninkan waxaa lagu magacaabaa Lawrence Rebel intii uu la noolaan lahaa xaaskiisana wuxuu ka doorbiday inuu xabsi galo kadib muran iyo isqabqabsi fara badan oo soo kala dhex galay labadooda isqabqabsigaasna wuxuu ku qasbay ninkan inuu tuug noqdo si loo xiro ninkan iyo xaaskiisa markii hore waxay ku noolaayeen nolol jacayl ku dhisan oo farxad iyo kalgacalba wadata lamaana isku qanacsan ayayna ahaayeen laakiin muddo kadib farxaddii iyo jacaylkii dhex yaalay lamaanahan wuu burburay kadib markii muran xooggan uu soo kala dhex galay labadooda Master Lawrence Rebel murug iyo walbahaar ayaa ku abuurmay wuxuuna go'aansaday inuu ka fogaado xaaskiisa laakiin hal wada ayaa u furneed uu kaga fogaan karay xaaskiisa oo ah in xabsi uu galo wuxuuna dejiyay qorshe uu xabsi ku geli lahaa go'aankan la yaabka leh ayuuna qaatay hub ayuu qaatay wuxuuna aaday bangi weyn oo ku yaalay magaalada Kansas ee dalka Mareykanka bangigii ayuuna gudaha u galay wuxuuna qori ku qabtay mid kamid ah haweenkii bangiga ka shaqeynaysay wuxuuna ku amray in lacagta bangiga taalo ay siiso wuxuuna ku cabsi geliyay in uu tooganayo ama dilayo haddii ay u diido lacagta way naxday gabadhii kadibna waxay u soo bixisay lacag dhan $3,000 oo kaash ah lacagtii ayuuna qaatay kadibna waxa uu sameeyay falkan la yaabka leh oo ah in uu fadhiistay albaabka laga soo galo bangiga wuxuuna shaqaalihii ku amray in ay wacaan booliiska taas oo la yaab ku noqotay shaqaalihii bangiga markii dambe booliiska ayay waceen kadibna ninkan oo lacagta gacanta ku haysta qorayna wata ayay u imaadeen booliiska wayna wadeen oo ay xireen xabsi ayayna geliyeen kadib booliiska markii ay wadeen waxay ninkan weydiiyeen su'aalo kala duwan oo ah waxa ku kalifay in bangi u dhaco kadibna booliisku uu sugo inta ay ka xirayaan wuxuuna bixiyay jawaabtan booliiska ka yaabisay wuxuu yiri arrintan oo dhan iyo dhicidda bangigan waxaan u sameeyay in aan xaaskeyga buuqeeda ka fogaado oo nasiina aan ku qaato xabsiga booliiskiina aad bay ula yaabeen dhaca marka uu geysanayay ninkan waxaa ku qasbay inuu dareemayo murug iyo in 2015kii marar badan qalin looga sameeyay wadnaha oo xanuun badan uu ka dareemayay kaas oo aanan markii dambe xitaa laga daaweyn xaaskiisa ayaana si fiican u xanaaneyn weysay wuxuuna xaaskiisa u qoray warqad ay ku qoran tahay in aan kula noolaado waxaan ka doorbiday in aan galo xabsi ninkan markii dambe arrintu aad baa loola yaabay waxayna la yaab la noqotay xaaskiisa qoyskiisa dadka deegaanka iyo dhammaan dadkii yaqaanay ninkan fajac ayayna ku abuurtay arrinta iyo waxa uu sameeyay oo ah dambigelid dhicid iyo inuu ka doorbido xaaskiisa inuu xabsi galo ninkan markii dambe waxaa lagu xukumay xukun ah inuu bixiyo $227 lana siiyo bangigii dhibta uu u geystay iyo in 50 saacadood uu u shaqeeyo bulshada wadooyinka nadiifiyo iyo goobaha bulshada iyo danta guudba xabsi guri 6 bil ahna laga dhigo iyo in uu bixiyo $100 oo la siinayo gabadhii uu ku handaday bangiga ugu dambeyntiina intaas oo idil uu sameeyay markii dambena ninkan xabsi ayaa la geliyay xaaskiisana wax yar ayuu ka fogaaday laakiin muddo kadib xaaskiisa dib ayuu ugu soo laabtay arrinta la yaab kale ayaa ah in qof dhan oo xaas qaba da'ah 70 sano jir in xaaskiisa uu kaga fogaado buuq iyo rabshad darteed sidoo kale xaasaska waxa iyaguna looga baahan yahay in raggooda ay ilaashadaan lamaanaha guriga wuxuu ku wanaagsanaan karaa in ay isdaryeelaan qof kastana qofka kale waxa dhibayo uu ka ilaaliyo haddiiba arrintu sidan ay tahay oo qof dhan in xaaskiisa uu ka fogaado bangi u dhacay xabsina loo geliyay noloshiisana khatar badan uu geliyay ninkan Lawrence Rebel waa nin ka yaabiyay dadkii ku noolaa magaalada ninkan uu deganaa 2016 ayana dhacdadan ka dhacday gudaha dalka Mareykanka lamaane isku faraxsanaa laakiin markii dambe mid kamid ah lamaanihii go'aan la yaab la uu qaatay xabsi gelid dambi gelid si uu kaga fogaado xaaskiisa darteed xaaskiisa arrinta markii dambe aad bay ula yaabtay waxayna la noqotay fajac qaar kamid ah qoyskeeda ayaana gabadhii kula taliyay in ay ninkeeda ilaashato xafido daryeesho kana ilaaliso buuqa iyo rabshadaha maadaama go'aan qaldan ninkan uu qaatay nafsadiisa halis fara badan uu geliyay oo ah in la dilo xabsi dheer loo diro iyo in dhibaatooyin kale bulshada uu geysto
ugu dambeyntii ninkan si walba xaaladiisu taho in bulshada uu u shaqeeyo lacaga tiro badan bixiyo gabadhii uu handaday lacag la siiyo ayay noqotay xaaladuna waxay kusoo gabagabowday markii dambe in ay noqoto mid jawi degan ah haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si uu asxaab fara badan ugu gaaro siina sheer garay aragtidaadana ka dhiibo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena tan iyo muuqaalkeena xiga ee maalinta berri waxaa idiin rajayn caafimaad bashbash iyo baraare waxaan ahay Joola Shaakir amaana Allah